ka digtoonow saddex illimood. kow ilinta qofka la dulmiyey. labo ilinta agoonka. saddex ilinta hooyada iyo aabbahaaba. haddii aad hoos degto mid ka mida illimadan oo ay kugu dhacaan waxaad naftaada u furtay iridda jahannama. dhaawaca u geysan qof adiga da ahaankaa weyn, marka uu hadlayana hadalka ha ka jarin, maxaa yeelay adiguba waxaad ahaan doontaa darajada hadda uu taagan yahay. haddii aad aragto qof aad jeceshahay u dhoolla cadday, wuxuu dareemi doonaa jacaylka aad u qabto. haddiise aad aragto cadowgaaga u dhoolla cadday, wuxuu dareemi doonaa awooddaada. haddii aad aragto qof kaa tegay u dhoolla cadday, wuxuu dareemi doonaa shallayto. haddii aad se aragto qof aadan garanayn u dhoolla cadday, ajirkaaga ayaad heli doontaa. qof fahma ayaaba iska yar. markaad qof la kaftamayso misana aad qoraal ahaan ugu qorto kaftankaasi, waxaa laga yaabaa inuu qalad u fahmo, maxaa yeelay cabiradii aad ka cabiri lahayd wejiga iyo hadalkaaga qaabkaad u dhigi lahayd ayaa qoraalka ka maqan. haddaba aad uga fiirso oo iska ilaali hadallada aad dooranayso markaad dadka la hadlayso, maxaa yeelay dadka badankood waa dad nafsaani ah oo hadalladaadu saameyn weyn ayay ku reebayaan. waxaan ku jirnaa zamankii cajaa'ibta iyo layaabka. amiirku waxa uu qorayaa gabayada murugta, faqiirkuna waxa uu qorayaa gabayadii farxadda. raaxada adduunyadu waa inaad waddadaada ku noolaato adigoo sharciga ilaahay waafaqsan, ee ma ahan inaad dadka dushooda ku noolaato. wanaagga in la inkiro waxay la micno tahay in qofka indhoolka ahi jebiyo ushiisa markuu araggu u soo laabto kadib. ha isku dayin inaad hubiso oo aad daba gasho shay kasta oo lagugu yidhaahdo, maxaa yeelay waxaad u fahmi kartaa qalad, kadibna dad badan ayaad ku khasaaraysaa fikirkaaga owgii. keliya waxaad wanaajisaa malaha aad ka malaysanayso dadka kugu hareeraysan. doqonku wuxuu ka hadlaa wuxuu samayn doono, qofka la kediyeyna wuxuu ka hadlaa wixii uu sameeyey. qofka caaqilka ahina waa uu shaqeeyaa, waxna wuu sameeyaa mana hadlo. wax farqiya uma dhaxeeyaan midabka cusbada iyo midabka sonkorta, labadooduba waa isku midab, balse farqiga waxaad ogaan doontaa markaad tijaabiso kadib. dadkuna waa sidaa oo kale. badanaa waxaa jiri doona qalbiyo aan ku nici doonin si kastoodan muhiimadda u siin, iyo qalbiyo aan ku jeclaan doonin si kastood u karaamayso. haddaba doorashadaada wanaaji. badanaa dadka ka hadla ceebaha dadka kale waa dad aan ku baraarugsanayn ceebahooda aadka u waaweyn, oo ayba ka mid tahay inay ka sheekeeyaan ceebaha dadka kale. saaxiibadu isma beddelaan, balse annaga ayaa ku degdegnaa in aan dad saaxiib laga dhiga karin ku magacaawno saaxiib. aad ayaan uga xumahay markay lacagtu hadlayso, xaqiiqadu waa ay aamusan tahay. dadka qaarkood waa ay kaa tegi doonaan, noloshaadana waa ay ka faaruqi doonaan, balse taasi ma ahan dhammaadka qisadaada, ee waa dhammaadka dowrkii ay ku lahaayeen qisadaada. wax kale ma aha. ma awoodid inaad shakligaaga iyo qaabkaaga beddesho si aad u noqoto waxa ugu quruxsan oo ay indhaha dadku arkaan, balse waxaad awooddaa inaad maamusho oo aad xakamayso akhlaaqdaada, aadaabtaadana qurxiso si aad u noqoto waxa ugu quruxsan oo ay indhaha dadku arkaan. waxaa naga mida dad badan oo marka ay doonayaan inay degdegaan ku odhanaya wanaaggu waa kii la dedejiyo, oo markay doonaanna inay dadka meermeeriyaan kugu odhanaya wanaaggu wuxuu ku jiraa in dib loo dhigo. arrintu waa laba wajiilanimo ee wax kale maaha. taladan iga hoo, laba mar qof ha ka dalbanin waxaad u baahan tahay, maxaa yeelay marka koowaad sharaf ayay kuu tahay, marka labaadna waxay kuu tahay dullinimo. markuu qofku weynaado qalinbiire ayuu wax ku qoraa, ee ma ahan qalin rasaas, ilaa uu ka ogaado in tirtiradda qaladyadu aysan ahayn wax fudud. waxaa jira waxyaabo wanaagsan oo aadan ku arki karin ishaada, keliya waxaa arki kara qofka quruxda ka raadinaya saxmadda dadka dhexdooda. raaxada barkeed waa inaadan dadka kala dabagelin oo aadan ilaalinin. aadaabta barkeedna waa inaadan gelin wax aan ku qusaynin. dhaladu waa ay jabtaa, codkeeduna si degdega ayuu ku dhammaadaa. waxaase baaqi noqda qaybihii jajabka dhalada oo qofkii taabta ama ku istaaga ayay dhaawac u geystaan. hadalka dhaawaca lihina waa sidaa oo kale, si degdega ayuu ku dhammaadaa, balse qalbiga ayuu xanuun ku reebaa. haddaba ha ku hadlin ilaa waxaan khayr ahayn mooye, oo raac dardaaranada 9 ah ee ku jira suuratul-xujuraat ee ah sida loola dhaqmo dadka. kow iska hubiya wararka la idiin keeno oo ha ku degdegina. 2 wanaajiya dhexdiinna oo heshiiya. 3 cadaalad isku sameeya.
4 qofna qof yuu ku jeesjeesin 5 nafafkiina ha xumaynina 6 naynaasyada ha isku xumaynina 7 in badan ka fogaada malaha 8 ha isjaajuusina 9 qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin si wanaagsan u qeyb oo u xafid arrimahan kuna dadaal inta cumrigaaga ka dhiman ogowna dadkoo dhan inaad ka farxiso waajib kuguma aha balse waxa waajib kugu ah qofna inaadan dhibin يا نفس إن لم تظفري